waxay tidhi dil qorshaysan buu ahaa 85% waanu haynaa ifkana meelun baynu wada joogi aakhirana meelun baynu wada joogi walaalayaal walaalada Sacad Muuse waxaan leeyahay walaalayaal xaalka Ciise Muuse bixiyay ee madaxweyne ku-xigeenkii ugu weynaa bixiyay sidii ay u guddoonteen sharaf iyo karaamo idiga hayna arrinkaasina saasuu ku dhan yahay maadaama Ciise Muuse madax iyo mijaba xaalka ay bixiyeen ragga aan fariidada ahayn ee arrinka yidina laga wada cadhooday aad ba ugu mahadsantihiin maantana halkaa aan ka hadlaya waa gurigii looga talinayo Subeerawan arrinkaasina saasuu ku xidhan yahay walaalada iyo waa mahadsanyihiin Ciise Muusena sidaa ay xaalka u bixiyeen waxaan maanta ka yara hadlayaa waxaan la taagnaa dhowrkii cisho u dambeeyay iyo xadhigay ugu horeyn waxaan tacsiyadeynayaa labadii marxuun ee lagu dilay bartamaha magaalada Hargeysa oo aan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto dhammaanteena samriye iimaan Ilaahay naga siiyo tacsi kadib waxaan sidoo kale xaal iyo raaligelin siinayaa walaalada Sacad Muuse waan leeyahay walaalayaal waxaynu nahay ul iyo diir hilba wada dhashaynu nahay ifkana meelun baynu wada joogi aakhirana meelun baynu wada joogi walaalayaal arrinkaa dhacay ee nimankaa aan fariidada ahayn ee aanay cili kula soconay ay ku hadleen xaalkii laydiga siiyey shanlaabkeed baan idiga siinayaa maadaama arrinkaasi aniga ku yimi walaalayaal niman aan fariida ahayn ayay ahaayeen raggii waxaa ku hadlay nimanka iyagoo maanta meedinoo yaallo walaalkii wixii la arkayay kula hadlayay weliba wax caqligooda ka yimi aanay ahayn walaalayaal ka raali ahaada arrinka raaligelin kadib waxaan ka hadlayaa xadhigayga waa laga hadlay reer Somaliland oo dhan baa ka hadlay si gaar ah waxa uga hadlay beesha aan ahay beesha Subeerawan xadhigaasi wuxuu ahaaba waa la arkay inuu xaq darro ahaa waa la arkay wixii dhacayay ee xadhigayga kadib dhacayna waa la arkay heeray gaadhay ilaa in guryahayagii iyo gurigii hooyaday iyo gurigii eedaday la galay wixii looga lagu sameeyay xadhiga xaalado badan baa ku gadaaminaa dubna waan u dhiganayaa se maanta waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan reer Somaliland gaar ahaanna beeshayda si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa ciidamadii kala duwanaa ee xadhigaygu soo maray taliyihii saldhigga dhexe ee Berbera iyo taliyihii jeelka weyn ee gobolka Saaxil degmadiisa Berbera taliye aad u qiimo badan aad baan ugu hambaliyeynayaa una mahad celinayaa ciidamaduna way ka madax bannaayeen siyaasadda jirta iyo wax dhacaya waayo iyagu waa astaan qaran waana tiirkii qaranka intaa kadib waxaan leeyahay xukuumadda meyd baa inoo yaalla xukuumaddu waxay tidhi dil qorshaysan buu ahaa 85% waanu haynaa sida iyaguba sheegeen waxaan madaxweynaha leeyahay madaxweyne sidaa ay xukuumaddaadu sheegtay waxaan u baahannahay dilkaa qorshaysan ee la sheegay ciddii qorshaysay iyo ciddii dilkii fulisay labadaba waan u baahannahay waana ceeb in muddo 10 cisho ku dhow 2 nin oo dhalinyaro ah oo bartanka Hargeysa lagu dilay in la yiraahdo ilaa maanta waxba looma hayo